ma isweydiisay sababta dadka qaar ay u gaaraan wax kasta oo ay rabaan adigana aad u taagan tahay wili meeshii ma isweydiisay sababta qof adiga kulimid ah ama ka aqoon yar ama ka fursad yar uu u gaaro meel sare horta aan ku sheego hal shay ibku ma ahan nasiibka ibku ma ahan meesha aad ku dhalatay su'aasha dhabta ah ee aad u baahan tahay inaad isweydiiso maxaa ku diiday inaad guulaysato muuqaalkan waxaan ku falanqayn doonaa 3 caqabadood oo maskaxdaada ku jira oo ka hor istaagan inaad gaarto riyooyinkaaga haddii aad ila joogto ilaa iyo dhamaadka waxaad ogaan doontaa furo walba aad u baahan tahay inuu gacantaada ku jiro number 1 cabsida guuldarada sababta ku diidan inaad guulaysato waa cabsida ma ahan cabsida dhimashada ee waa cabsida haddii aad fashilanto dadka maxay dhihi doonaan dadka guulaystay ma ahan kuwa aan wiligooda dhicin ee waa kuwa marka ay dhacaan dib u kacaan haddii aad ka cabsanayso inaad khalad samayso marnaba ma baran doontid sida saxda ah saaxiib guuldarada ma ahan cadowga guusha ee waa qayb ka mid ah jidka loo maro guusha number 2 marmarsida maalin kasta lacag ma haysto waqti ma hayo dalku wuu adag yahay ma ogtahay qof walba oo guulaysto wuxuu lahaa marmarsiyooyin ka waaweyn kuwaada laakiin waxay doorteen inay xoog saaraan halkii ay ka calacali lahaayeen haddii aad rabto inaad guulaysato waa inaad joojisaa sheekooyinka aad u sheegayso naftaada kuwaas oo kugu celinaya sariirta dusheeda numberka 3 sugitaanka waqtiga saxda ah sababta saxda ah ku diidayso inaad guulaysato waa inaad sugtaa waqti sax ah waxaan rabaa inaan runta kuu sheego waqti sax ah ma jiro beri ma ahan waqti sax ah bisha dambana ma ahan waqtiga saxda ah waqtiga kaliya ee aad haysato waa hadda haddii aadan maanta bilaabin adigoo haysta wax yar marnaba ma bilaabi doontid marka aad hesho wax badan guushu waxay timaadaa marka aad tilaabada koowaad qaado adigoo oo u dhabar adeegaya mugdiga gabagabadii iyo gunaanadkii haddaba mar kale ayaan ku weydiinayaa maxaa ku diidaya inaad guulaysato jawaabta adiga ayaa iska leh haddii aad maanta go'aansatay inaad isbeddel samayso qoraalka hoose ee commentiga ku qor maanta ayaan bilaabayaa ha ilaawin inaad like saarto muuqaalkan haddii uu ku dhiirigeliyayna subscribe si aadan u sheegin asharada xiga ee noloshaada beddelaya xasuusnaaw guushu waa go'aankaasna adiga ayaa iska leh nabadgelyo